waxaan rabaa munaasabada farxadda leh inaan anigana sidoo kale la qaybsado shirkadeena caalamiga ee weyn ee sharafta badan leh Hormuud oo aan boqolkiiba boqol aan la qabo caawa intii halkan laga sheegayay abaalka ay ummadda Soomaaliyeed ay ku leeyihiin sharafta iyo qiimaha ay agteena ka leeyihiin Soomaali hadaynu nahay waxaan rabaa 3 nuqdo ama 4 qodob inaan taabto koow Hormuud horta inta laga sheego oo dhan anoo la qabo ka sokow Soomaaliya shirkad 20 ama 30 sano jirsatay oo guusheeda iyo quruxdeeda ay inta ay gaartay momentumkeeda ay Soomaali oo dhan marqaati ka yihiin waa tusaalooyinka yar yar ee aynan inta badan la heli karin maxaa dhacay shirkadaha la aasaasa bil sanad 2 sano 3 sano suuqay ka baxaan horta inay sustainability ku jirka suuqa ay sii balaarteen ay sharaf iyo guul ay businesska Soomaalida Hormuud ugu noqdaan nafteedana aan sahalsaneen talentiga iyo qiimaha Soomaalida kor u qaadeen horta waa maasantiin midda labaad service waqtiga loogu baahi badan yahay Soomaali ay u baahan tahay sida halkan oo ka sheegay sheekheeni Suldaan Qorane dadka qurbaha joogo meesha rabaan Soomaaliya ka joogaan inaad heli kartid $100 hooyo iyo aabe inaad u dirsatid waqtigii loogu baahi badnaa bilowdeen ilaa imaanta casriga ganacsiga aad soo kordhinaysaan ee EVC ha noqdo ama ha noqdo internet ama ha noqdo constructionska xooga badna ee qiimaha leh bildhimada taawarada dheerka ah qayb kastood gashaanba quality-ga iyo qiimaha aad ku soo kordhiseen macna badan aad suuqa Soomaalida ee ganacsiga u yeesheen oo ayadana loo baahan yahay inaad regionally ama state ahaan ama wadan ahaan wadamada dariska iyo kuwa kale la midkaba inaad u ganacsi tagtaan oo mataqaana bangi aad ka furteen macnaha ayadana qiimo gooni aad ku soo kordhiseen ganacsigeena inta badan qaybta ah in dadka loo gargaaro oo social responsibility-ga iyo inaad dhaqaalihii Ilaahay idin siiyay dadka Soomaaliyeed aad la qaybsataan sharaf badan aad ku leedihiin maxaa dhacay waxaan marqaati ka ahay markuu qarax dhaco dadka masaakiinta baahan ee shirkad waxaan ku dhahaa xarumaha magaalada ka jiro meeshay rabta ha noqoto sidaad u garab istaagsan tihiin ee aad Hormuudka ugu tihiin ayadana sharaf iyo qiimo aad ku leedihiin waa waxa Ilaahay xoolihiina iyo dhaqaalihiina uu ku kor ugu qaaday Ilaahay idin ziyaadiyo waa qaybta ah tabarucaadka iyo garab istaagka dadka dhibaatada iyo dhibka soo taabta ayadana waa ku maasantiin qaybta kale xiisaha leh Hormuud waxay ka tilaabsatay xuduudaha qabiilka iyo xuduudaha gobolada oo Soomaalida kala xirxiro waa waxyaabaha u baahan tusaale inay u noqdaan meel kasta ay tagaan ama Hargeysa tag oo Boorama tag oo Garowe tag oo Kismaayo tag oo Baydhabo tag oo Xamar tag oo Buulburta tag meel kasta aad tagtay inay Hormuud ku taalana ayadana oo aanan la dareemeynin qabiileysneen siyaasadeysneen Soomaaliyeysan tahay qof kasta servicekiisa uu ka faa'iideeyo waa qaybta waxyaabaha kaliya oo aan rabno tusaale inay u noqono markaan rabno mashruuc xaduud qabiilka ka baxsan waa in sida Hormuud kala tusaale loo soo qaataa waxaan jeclaan lahaa siyaasadda Soomaalida inay sidaas noqoto waxaan jeclaan lahaa qadiyad kasto Soomaali ay ku jirto in xaduudda Soomaalida ee aanan qabiil lahayn oo gobol lahayn sidaas oo kala manaafacaadkii laga faa'iiday shaqo abuurkii laga faa'iiday maxaan ku dhahaa servicekii iyo waxa ay bixinay laga faa'iiday tusaale ama uswa xasana ama tusaale fiican waxa u tihiin ganacsi marka ma soo kordhinin waxa soo kordhiseen marka waa wax umada nacfiga meel kasta nolosheeda kamid tahay saameyn ku yeeshay ayadana waa ku maasantiin isku soo wada duub waxaan rabaa anoo ku hadlay magaciida iyo magaca saaxiibaday iyo magaca dawladda Soomaaliyeed oo dhan inaan idin dhaho serviceka iyo sharafta iyo qiimaha aad qabanaysaan Soomaaliyeed oo dhan abaal idin ka hayo qofkii aan maqashaan asigoo Hormuud wax ka sheegayna waxaan u maleynayaa danta Soomaaliyeed oo dhan uu qatar ku yahay wuxuu qatar ku yahay inta qof ee ka faa'iideysatay ee ganacsiga ama qaybta raba ha noqday ee caawa laga sheekeynaya 100,000 oo qofood oo shaqaalaha dawladdeena Soomaaliyeed dadka u shaqeeya waxay la egyihiin dad 10,000 5,000 6,000 7,000 oo qofood shirkad Soomaali inay shaqaaleysato 30,000 ama 40,000 waa inaan dhahnaa waa mahadsantahay waxa aynu isku dilayna waa shaqo la'aan waxa wadanka khatarta ka taagan tahay ilmaheena meel kasta ay u galayaan waa inaysan haysanin
fursad shaqo oo ay ku shaqeeyaan shirkad kastoo Soomaali ah oo sida Hormuud hal qof ama 10 qof ama 100 qof ama 1000 qof shaqo siin karto waa inaan dhahnaa waa mahadsantahay waa inaan kor u sii qaadnaa kobaceena dhaqaale qayb ka tahay wadankeena inuu horumar qayb ka tahay ugu dambeyntii waa mahadsantiin Hormuud caawana waxaan ku faraxsanahay inaan marqaati ka noqdo abaalka abaal gud maash idin la siiyay inaad number 1 u noqoteen abaal marintaas xaruntii ka shaqeysana aad u mahadsantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh